komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa saaka si rasmi ah uga bilaabay deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer iyo degmada Caynaba qaadashada kaarka diiwaangelinta codbixiyaha Somaliland. Mas'uuliyiinta sare ee komishanka doorashooyinka Somaliland ee ku sugnaa magaalada Burco ayaa saaka indho-indheyn ku soo maray badiba goobaha kaarka codbixinta diiwaangelinta doorashooyinka laga qaadanayo. Markii ay kormeerkooda soo dhameysteen, kaltuun ayaa uga warbixisay warbaahinta goobahaasi sida habsami ah ay uga socdaan kaarka codbixinta, waxaana fariin wacyigelin u dirtay bulshada inay qaataan kaarka codbixinta doorashooyinka. Dhammaan waxaan soo dhaweynayaa madaxda xisbiyada ee halkan nala taagan iyo bulshooyinka kala duwan ee reer Togdheer. Maanta sidaynu ognahay waa 27 bisha waxay noo bilaabmay diiwaangelintii labaad ee gobolka aynu ku talagalay oo socon doona muddo 4 maalmood ah. 4 maalmood maanta ay nooga bilaabantay oo 27 bisha ah ilaa 30 bisha hadii ilaahay gaarsiiyo waxa loogu talagalay 4 maalmood in la diiwaan geliyo qofkii markii hore aan qaan gaarin, qofkii intuu ku celceliyay kaarkiisa hore ka gubtay, iyo qof haba ahaada qaan gaari laakiin aanay u suuro gelin markii hore inuu isdiiwaan geliyo ama dalka ka maqnaada ama ha joogay. Saddexda qof baa loogu talagalay inay 4 maalmood isdiiwaan geliyaan. Marka waa muhiim dadku inay ogaadaan yaanu ku noqon qofkii markii hore isdiiwaan geliyay ee kaarkiisa uu sax yahay oo aan duplicate-na ahayn haddii 4 maalmood uu ka qayb qaatay kaarkiisa hore uu ka gubanaya. Marka qof kasta oo hore isu diiwaan geliyay kaarkiisuna sax yahay yaanu isdiiwaan gelinin 4 maalmood aynu ku jirno iyo inta ka dambeysaba. Inta loo ogoliyay waa inta aan sheegay. Waxa kale oo jira dad iyaguna muhiim ah oo loo tixgelin doono oo ah qofka kaarku uu ka lumay. Qofka kaarku uu ka lumay iyo degmooyinka qofka doonaya inuu iska bedelo. Degmooyinka horena waa nagu celcelinay waxa weeyaan 23 degmo doorasho ayuunbuu qofku ka dooran doonaa uu doonaya hadhow inuu isu bedelo, laakiin caasimadda gudaheeda oo kale looma ogolaanayo. Waa degmo ilaa degmo. Marka taan bulshada in la gaarsiiyo oo qofkii doonaya markii hore tusaale ahaan ama Oodweyne ha ahaado ama Hargeysa ha ahaado inuu iska bedelo Burco Hargeysa taga ama iska bedelo Oodweyne tago. 14 maalmood oo dambe oo la siin doona ayaa jira. 14 kaas qofkaas ka faa'iideysanaya, qofka kaarku ka lumina wuxuu ka faa'iideysanayaa muddada. Marka dhammaan waxaan ku faraxsanahay maanta gobolka Togdheer dhammaan iyo degmooyin Caynaba gar adag ceelfeyn inay ka bilaabmeen diiwaangelintii labaad inay si fiican uga furantay una shaqeynayaan. Waxa idinku kaga wanaagsan tihiin goboladii hore dad soo shaqeeyo khibrad la ayaa maanta fadhiya goobaha. Way ka gacan fudud yihiin intii hore oo ay qofku marka ugu horeeyo wax bilaabo iyo markuu sii barto waxa ka sii wanaagsan marka dambe. Marka idinku waxaad u hesheen nasiib xubno fiican oo soo shaqeeyay oo khibrad u leh oo speedkooda maanta fiican yahay. Goobo badan baan soo maray si fiican bay u shaqeynayaan. Waxay ilaahay ka rajaynaynaa sida ay noogu dhamaato dhammaan gobolka wacyigeliya oo fariimaha aan idin sheegnay hal la gaarsiiyo xisbiyada ha gaarsiiyo bulshada ha gaarsiiso. Kulli xisbiyada ay ka dambeyn doona inta kala sheegi doona, laakiin muhiimadda maanta halkan isugu nimid waxa weeyaan waa dib u furistii ma ha diiwaan gelin. Waa dib u furistii labaad hore inuu isu diiwaan gelin. Laakiin waxay nagu talagalay marka intaan hore isu diiwaan gelin inaynu chance ka siino oo ay ka qayb qaataan doorashooyinka soo socda hadii Ilaahay ka dhigo. Cabdiqani Baafay, Star TV, magaalada Burco.